Saaxiibka wanaagsan waa kan marka aad u baahan tahay garabka kuu ah. Kuwa aad isku fasalka tihiin ee aad wax wada barateenna kuma sii jiraan. Kuwani waa qaar ka mid ah ardayda Jaamacadda Soomaaliya. Qaarkood weli waxa u socda geediga waxbarashada, halka kuwana ay horey uga qalin jebiyeen jaamacadda. Waxa ay booqanayaan Xafse Cabduqaadir oo 2019 ka qalin jebisay jaamacadda, sanadihii dambena la nooleed xanuunka SLE oo ah xanuun difaaca jirka uu qalqal ku imaanayo, isla markaana wax looga qaban waayay cisbitaalada ku yaala gudaha Soomaaliya. Si dhibka heesta Xafse ay ula qaybsadaan, ayay ardayda Jaamacadda Soomaaliya ay iska soo ururiyeen lacag dhan $3,870, waxaana ay ku wareejiyeen Xafso iyagoo u sheegay in tani ay tahay salaan, balse ay mar walba garab taagan yihiin. haddana waxaan rabnaa inaan ku wareejino walaasheen Xafse Cabduqaadir Shariif lacagtii aan soo aruurinay. lacagtan cadad ahaan waxay gaaraysaa 3,870. waxaa soo aruuriyey ardayda Jaamacadda Soomaaliya meel walba ay joogaan. sidoo kale waxaa garab ku lahaa qaybna ku lahaa tiimkii Xafso kalaaskay ahaayeen, fasalkay ahaayeen, wax isla barteen, wax isla dhameeyeen, ayagana qayb ay ka ahaayeen lacag aruurinta. Gudoomiyaha midowga ardayda Jaamacadda Soomaaliya Cabdiqani Cabduqaadir Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka ardayda Jaamacadda Soomaaliya Cali Axmed Xaashi Cali Baato oo madasha ka hadlay ayaa codsaday in Xafse lagu garab istaago inay hesho caafimaad dibadda ah, maadaama ay ku jirto xilligii dhallinyarnimada oo ah xilliga ugu habboon ee nolosha aadanaha. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay Cabdulaahi Cabdirasaaq Cumar oo ay isku fasal ahaayeen Xafso, waxaana uu sharaxay xanuunka haya. kadibna waxa iyana dhankooda hadlay gudoonka ardayda Jaamacadda Soomaaliya. xaqiiqatan markaan ka hadlo Xafso waxaan ahayn dad isku kalaas ah oo hal meel ku wada waxbaran jiray ilaa 2015 ilaa 2019. sanadihii dambe ayay waxay kari weysay jaamacadda inay sii wadato Xafso. ugu dambeyntiina way u suurta gashay inay dhammayso weliba iyadoo xanuunsanayso. xanuunka ku dhacayna waxaa la dhahaa xanuun waxaa waaye ilaahay ku keeni karo oo la dhahayo SLE ama systemic lupus erythematosus oo Soomaalidana badanaa u taqaan yani waxaan xanuun yani difaaca jirka dib isku weerarayo. yani Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga talagalay difaaca jirkeena, wuxuu u sameeyay inuu naga difaaco waxyaabaha banaanka inooga imaanaya sida infectionska viruseska. difaaca jirka ayaa wuxuu jirka u aqoonsaday inuu yahay wax banaanka uga imaanaya, soo marka jirka dib oo la dagaalamaa asigoo marka saameynaya marka xubnaha qaar jirka ka mid ah. Ilaahay Xafso oo u sahlay oo dadka qaar wuxuu uga dhacaa maskaxda, dad wuxuu uga dhacaa kelyaha, dadna wuxuu uga dhacaa beerka, dadna lafaha uga dhacaa. ayada marka kii ugu sahlanaa ku dhacay. waa cudur xanuun ku badan haweenka 95%, waxaana koos gareeyo waxyaabaha environmentalka ama air pollutionska sababa koos gareeyo. waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah insha Allah taala. qof walba muslimna waxaan ka codsanayaa inuu u duceeyo Xafso caafimaadkeeda sidoo maanta ahay. qalbiga horta way ka caafimaad qabtaa maasha Allah, jirka intuu dhiman Ilaahay caafimaad ha siiyo insha Allah. waa mahadsantiin. waxaan ka soconaa xafiiska midowga ardayda Jaamacadda Soomaaliya, aniga iyo gudoomiyaha, anaga gudoomiye ku-xigeenka ah iyo gudoomiyaha iyo xogayaha. waxaan soo booqanay iyo tiimka gabadha fasalkeeda ahaa, gabadhan walaashayna ah, si aan u dareensiino inaan nahnay garabkeeda, inaan nahnay si aan u dareensiino ayaa maanta soo booqanay. waxaana u imaanay inaan ku wareejino deeq ka soo gaartay ardayda jaamacadda. maamulka jaamacaddana nagu ogyihiin inaan maanta booqano gabadhan walaashayna Xafse Cabduqaadir Shariif. waxaan leenahay Xafso Ilaahay ha ku caafiyo, garabkaaga ayaan nahay mar walba. sidoo kale waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ku celiyo in gabadhan walaashayna ummadda muslimiinta guud ahaan inay u duceeyaan. sidoo kalena maadaama dalka wax lagu qaban waayo, cid kasta oo wax tari karta inay wax tarto gabadhan walaashayna. sidoo kale waxaan rabaa galabta fursaddan inaan uga faa'iideysto aan uga mahad celiyo tiimkii markii ugu horeysay barnaamijkan la soo wadaagay oo ahaa tiimkii Xafse isla baranayeen lab 15. sidoo kale waxaan rabaa inaan fursaddan uga mahad celiyo oo aan ilaa mahadsantihiin maamulkii jaamacadda oo inoo fududeeyay, noona suurtageliyay, naguna dhiirigeliyay inaan barnaamijkan qabanno, ardaydana aan ku dhex galno. sidoo kale waxaan rabaa
inaan u mahad celiyo ardaydii sida quruxda badneed uga qayb qaadatay caawinta walaasheena xafso xafso anaga wakiilaan nahay waxaana wakiil ka nahay marka ugu horeyso tiim matalaya galaaskaagii matalaya hala soo baratay second waxaan wakiil ka nahay dhammaan ardayda jaamacadda Soomaaliya oo dhan ardayda hadda dhiganaysa iyo kuwa baxay intaba ayaan wakiil ka nahay wixii ay noo soo dhiibeen anagoo unionka inaan kusoo gaarsin ayaan jeclaysanay sidoo kale waxaan wakiil ka nahay galabta oo inaga warhaayo booqashadeena maamulka jaamacadda intaas oo wada jira ayaa galabta kusoo booqatay ardayda jaamacadda Soomaaliya waxay qabteen shaqo ku dayasho mudan walaasheen Xafsana waxaa la gudboon sabar ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeedna waxaa dhankooda la gudboon in gabadhaas wax baratay ay hiil iyo hoo la garab istaagaan isla markaana ay u duceeyaan Abbas Xuseen Muuse RTV Muqdisho رمضان مبارك.